halkani waa xamar oo yeelatay indhaydi diiro waxaanay ku abuuraysaa shacabka rajo baaxad leh dib u soo kabashada caasimadda ummadda Soomaaliyeed oo mid saameynaysa dhaqanka waxbarashada ganacsiga iyo dhammaan isdhexgaliyada bulsho heer gobol ilaa heer deegaan dib u dhacyadii ay la nooleed sodomeedyadii sane la soo dhaafay waxaad moodaa inay ka soo noolaanayso waxaanad ka dareemaysaa sida dhalinyartu ganacsiyada uga abqaalayaan ee ay u aamineen halkani muddo hore kama ay jirin waxbarasho nidaam kala dambeyn iyo nayaayir bulsho lagu joogo ama lagu noolaado se intaasoo soo cagaaraysa ayaa la arkaa joogtadan way sinaayeen meydku dhaawacan isna lama guri karayn waa kolkii qaraxyadu tirabeelka ahaayeen dowladdii dhalatay waxay la kowsatay xaaladaas oo ay isbeddel ahaan dadaal gelisay haba ka gaabiso sidii hore qaraxa iyo iska dilka ama dhibaataynta shacabka ummadda Soomaaliyeed uma xoogana ama way ka engegeen dhulkan doorka ugu muhiimsan ee mudan la xusaabo waxbarashada iyo sida dhalinyartu ugu haraadan yihiin inay aqoon kororsadaan kasoo bilow heer dugsi ilaa jaamacad waxa jira baraarug aqoon raadis aadanuuna waxa uu waxtarmiyaa oo dhaxareeba ama isbeddel iyo xadaarad abuura waa inta uu iskobciyo waxbarto ama dhalintiisa u hago jihada aqoonta ee timaadada wax weyn ka bedesha haddaba hayaanka bulshada haybsanaya dawlad iyo shacab ku qotoma dhidibba adag aan ciirayn waxa uu sababay in la helo dad fara ku tirisa oo garaadkooda u tuujiyay shacabkooda isla markaana dalkooda ku sameeyay maalgelin aqooneed oo tayadeedu sarreyso nuxurkeeduna yahay in la helo dawlad Soomaaliyeed oo cidhiidhsanaysa kaalmaha ugu horeeya teknolojiyadda iyo horumarka adduunka waxbarashadu waa furaha horumarka bulsho waddan kasta oo horumar gaarayna waxbarasho tayo leh ayuu ku gaadhay heerkaas marka dhibaato dhaqan dhaqaale ama mid siyaasadeed ay ku timaado dawlad xal u helista arrintaas la soo daristay waxa lagu furdaamiyaa waxbarasho hufan oo sal adag ku fadhida haddii si kale loo dhigo waxbarasho aan dhidibba adag ku taagnayn waa meesha ugu horreysa ee ummad qaran ama dawladi ku burburto sidaa darteed nidaamka waxbarasho ee hagaagsani waxa uu mar walba horseedaa horumar dhinaca kale marka la barbar dhigo waxbarasho aan tayo lahayn inay horseedo wadada burburka iyo hagaaska dawladnimo muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah jaamacadaha Soomaaliya horseedka waa Cambridge University waxay sanadihii ugu dambeeyay ka sameynaysay bandhig heer sare ah masraxa aqoonta iyo saaxadda ay ku loolamaan jaamacadaha ugu aqoonta fiican deegaanada Soomaalidu degto laga soo bilaabo bishii July sanadkii 2017 waa xilligii lagu dhawaaqay magaca iyo goobta saldhigga waa jaamacadan iyadoo ku soo biirtay diiwaanka aqoon bixiyayaasha Soomaaliya ka jira bulshadu waxay u arkaysay mid aan dhaamin jaamacadihii hore uga yagleelnaa deegaanadooda balse Cambridge University dhinac kale oo ifaya ay iska tustay dhalinyartii diifta u haysay aqoon hufan oo daacadnimo ku dheehan tahay kor u qaadida qiimaha iyo tayada aqooneed ee bulshada waa ujeedka ay u abqaaleen jaamacadan iyadoo dhamaystir ku samaysay qalabkii fududeynaya aqoonta ay bixiso waqti ku filan goob ku habboon iyo qorshe waxbarasho ku salaysan lana jaan qaadi kara awoodda iyo dhaqanka ardayga Soomaaliyeed maamul ku takhasusay isla markaana xirfad u leh hogaaminta waxbarashada macallimiin u carbisan aqoonta ay bixinayaan kana dhisan xagga maadada iyo maskaxda intaba waxaana xusid mudan in kuliyadda caafimaadka oo arday badan u aadi jireen wadamada dibadda iyagoo ka dayrinaya tayada aqooneed ee jiilalkii ka horreeyay ay ka dhaxleen dalka gudihiisa jaamacadda Cambridge University iyadu waxay lahayd fikrad ka gedisan taas waxaanay go'aansatay in dalka laga tirtiro haraadka baana ay daayartu u qabaan aqoonta caafimaadka istiidooyinka Soomaaliya ka jira waxaad moodaa inay tartiib u suulayaan garashada iyo garaadka maskaxeed ee bulshaduna waxay ku baraarugeen xadaaradda iyo mustaqbal ifaya oo ka saliya mug weyn joogtadan ummadda Soomaaliyeed dhalintuna waxay ogaadeen in cagajugleynta eexda iyo quursiga uusan la tartansiinayn facooda adduunka horumaray ee ay jirto walax kale oo ka gedisan intaas waana aqoon hufan oo karti ku lamaan tahay haybsooca iyo takoorka qolo ama qayb bulshada ka tirsan lagula kaco waa dhaqan aad u foolxun aan daab iyo saltoonna ku lahayn xuquuqda aadanaha diinteena muqaddaskana meel cad ka istaagtay raadadka ay reebaan falalkana ayaa waxay curiyaamiyaan horumarka iyo hayaanka loogu jiro mustaqbal cagaaran si aafadaas meesha looga saarana waxaa talo ku soo ururtay in dhalinyarta Soomaaliyeed laga dhiso dhanka aqoonta loona toosiyo baraadka iyo garashada heesha dheer xildhibaan Yuusuf Xayla Jimcaale waxa uu garwadeen ka yahay jamciyadda Soheeda oo ka shaqeysa dhismaha kobca aqooneed iyo tayeynta dadka la haybsooco in ka badan kumanaan daayar Soomaali ah ayaa ka aflaxay jamciyaddan fikradda ah in la helo ummad siman oo ku loolami karta wadiiqooyinka nolosha ee kala duwan waxay u baahan tahay kalsooni iyo dhaqaale tiro badan oo fure u noqon kara baabi'inta tiirarka maalaawaalka ah ee Soomaalida ragaadiyay casriyadan dambe waxaan rabaa inaad iigu dartaan ducada inuu Ilaahay waafajiyo waxa wanaagsan oo ummadan khayr u ah wixii shar u ahna inuu Ilaahay iga leexiyo iyadoo jaamacadda Cambridge ka duulaysa arrintaas ayaa waxay sanad waliba qaabishaa
20 arday oo qaab bilaasha aqoontooda sare loogu qaado kana socda jamciyadda Suheeda. marka qabiil laga hadlayo isku qabiilmanihin laakiin Soomaalinimo ayaan ku taageereynaa waan u mahadcelinaa xildhibaanada kale oo anagana matalo waxaan leenahay ku daysada xildhibaan Yuusuf Xayle. adeegsiga daroogada qabatinka maandooriyaha iyo maadooyinka miirka beeliya waxay horseedaan halis nafeed iyo mid bulsho intaba. raadadka ay sababaan iyo saameynta ay ku leeyihiin aadanaha waxay u muuqataa mid aan laga soo waaqsan karin. daraasad la sameeyay guyaashii aan soo dhaafnay waxay carrabaabtay in 85% da'yartu ay ugu jirto baylaha walxaha maanka dooriya. burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxay ibafur u noqotay dhiigbax dhaqaale oo xaddi badan. duruufta nololeed iyo saboolnimada xad-dhaafka ah ayaa dhalinyar badan ku kaliftay inay miirkooda iyo maankoodaba dooriyaan si ay uga mashquulaan mustaqbalka qalafsan ee ay maskaxdoodu sawranayso. haddaba jaamacadda Cambridge University waxay bilowday wacyigelin lagaga hortagayo aafadan curyaamisay horsocodka bulshada iyadoo dhaqaaliyo firfircooni kartiyeed ku bixisa baabi'inta fikradda ah maandooriyaha. waxa uu raadinayaa wixii cuni lahaa meesha uu ka keeni lahaa xataa balwada iyo cuntada waxa muhiim u ah inuu balwada helo xataa soo gaajsan maconaya. daroogada maanta lama dhigi karo ragga bisa isticmaalaan saame u yihiin badana way qarsadaan. daroogadu wax fiican maaha. daroogadu waxay u daran tahay qofka maskaxiyan maskaxdiisa qofka ma u sameysno jadwal u isticmaal amal oo waarkiis ku soo booqdo oo ilmihiisa ku fiiriyo oo asi dad levelkiisa wax la qabsado. daayartan oo arday ka ah jaamacadda Cambridge University waxay cod dheer iyo mid gaabanba ugu dhawaaqeen bulshada dikhowda ee xayndaabka jabsatay inay ka waantoobaan falalka dhaqanka xun ee garaadka lagu dooriyo. aqoonta caafimaadka medical knowledge Soomaaliya 30 sano la soo dhaafay waxay la diifaysnaatay liidashada waaxaha caafimaadka ee kala duwan. arrintan waxa loo aaneynayaa dagaaladii sukeeyay ee dalku la daaladhacay muddada dheer. bulshaduna waxay ka niyad jabeen hoos u dhaca adeegyada caafimaadka ee dalkooda bariinsaday. dibadda ama wadamada shisheeye oo dhaqaale badan kaga burburo bukaanka iyo heladiisa ayaa xal u noqday dib u soo celinta badqabka qofka xanuunsanaya. dabayaaqada sanadkii 2018 waxa ururka caafimaadka adduunku daraasad ka sameeyeen wiiqanka tirabeelka ah haysta bukaanka Soomaalida waxaana natiijadoodu noqotay in goobaha fayadhowrka ay tayadooda aqooneed liidato iyadoo 60% bukaanka Soomaalidu ay naftooda ku waayaan garasho la'aanta cudurka haleelay. sidoo kale xanuunada sababta u noqday geerida dadyowgaas 45% waa cudurro ay fududahay iska daaweyntoodu. Faadumo Cali waa haweeney Soomaaliyeed oo muddo 6 sano ah daba guraysay helidda cunug cusub oo nolosheeda ku soo biira balse dhakhaatiir badan oo aaday rajabeel ay ku rideen waxaanay u sheegeen suurtagalnimada doonitaankaas in uu daldalan yahay. balse hooyadani kama ay rajo dhigin qoraalka alle iyo dambeetada qurxoon. booqashadeedii ugu horeysay ee ku timi xarunta fayadhowrka ee Fadxi waxa uga dhex muuqatay didiilo cudoon oo alle iidankii u rumeeyay. waxaa u imaaday Dr. Faxdi asaa daaweeyay daawooyin uu qoray daawooyinka uu qoray caafimaad Ilaahay igu siiyay waxaan ku helay waxaan doonayay. Dr. Fadxi waa dhakhtar takhasusyo badan sita hormuudna waa jaamacadda Cambridge University. isagii aqoon-yahano faciisa ayaa ku dhiiraday inay da'yarta Soomaaliyeed kartidooda aqooneed mideeyaan si aafada caafimaad darro looga baxo bulshaduna u hesho xuquuq fayadhowr oo heer sare ah. waxay abqaaleen istiraatiijiyad xeel dheer oo ku salaysan soo saaridda dhakhaatiir Soomaaliyeed oo wadamada adduunku aqoonsan yihiin. si taa loo hirgeliyana waxaa heshiis la saxeexatay jaamacadda Cambridge University aqoon bixiyayaal caalami ah sida Macadka Jawhar Institute. barashada cilmigu waa fikrad ama aragti marka ay dhiganayaasha ku daabacan tahay waxaanay noqotaa aqoon wax ku ool ah hadba sida uu ardaygu ula kulma dhigay iyo qalab dhammaystiran oo tababar u noqon kara u rogaalka fikradda faltaya sare leh. jaamacadda Cambridge iyadoo wadada u xaadhaysa carbinta dhakhaatiir da'yar ah oo bulshadooda ka qabtira baahida caafimaad waxay wada shaqayn dhow la samaysaa goobaha caafimaadka ee Soomaaliya ugu tunka weyn sida Cisbitaalka Banaadir, Egyptian Hospital, Madiina, Orduqaan iyo kuwo kale oo badan. xeerarka iyo dambiyada law and criminology dawladda federaalka Soomaaliya ee qorshayaal tiro badan xariiqday wax ka beddelkooda sida dhaqaalaha waxbarashada ammaanka iyo nabadgelyada. talada markii haleeshay la waqti xaadirkan waxay xaqiijisay boqolay kooban dib u hameynta ammaanka iyo garsoorka halka tacdiyada ka dhanka aadanaha iska horimaadka iyo khalkhal gelinta ammaanka qaranku ay waxyeello u geysteen bulshada rayidka ah. dhammaan dhinacyada isku dhacay waxay galeen xadgudubyo foolxun oo ka dhan ah sharciga caalamiga iyo kan aadanaha. kooxaha xagjirka ayaa weeraro aan kala go' lahayn ku qaaday dadka rayidka ah waxaanay ciidamiyeen carruur da'doodu yar tahay. khilaafyada ka dhex caloosan qabaa'ilka iyo ciidamada nabad sugidda Soomaaliya waxay sababeen dhimasho,
dhaawac iyo barakicinta dad aan waxba geysan. bulshada Soomaalidu waxay ku andacoonayaan in garsoorka iyo dambi baadhistu faleen gabood fallaxayn daabka aadanaha ka dhex baxsan iyagoo ku saleeyeen xeerarka ciqaabta ay dhinaca dhigeen darafyo ciilan. aqoonta sharciyada iyo raadraaca dambiyadu waxay ka tahay Soomaaliya mid aan xiiso lahayn. in la helo dhalinyar firfircoon oo bulshadooda ka kobciya aqoonta cadaaladda iyo garsoorkana waa hawl adag oo u baahan dadaal. jaamacadda Cambridge University iyadoo qaadaysa tallaabooyin ay ugu yeedhay istaraatiijiyadda fayow ee qaanuunka iyo dambiyada ayaa waxay aqoon bixiyayaasheeda ku soo kordhisay khubaro dhigaya Bachelor Degree of Law and Criminology oo bulshadu baahi weyn u qabtay si dhalinyarta lagu dhiirigeliyay inay sharci yaqaano tayo leh noqdaan. waxay jaamacaddu qarashaad dheeri ah ku bixisaa raandhiiska aqoontan iyo barashadeeda. waa tuma jaamacaddu jaamacadda Cambridge University saldhigeeda guud waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho. ujeedada loo aasaasayna waa in la helo lana hirgeliyo riyada jiilka koraya oo dhanka anshaxa diineed iyo dhaqankaba ka dhisan. aragtida bartilmaameedka fayo ku dhisan ay xambaarsan tahay jaamacaddani waa in ay kor u qaaddo tayada waxbarashada ee gudaha Soomaaliya. ardayda ka qalin jabaysayna si madax bannaan ugu shaqaystaan aqoontooda iyagoo dareemaya rajo fiican iyo kalsooni xirfadeed. la jaanqaadidda isbedelada joogtada ah ee waxbarashada adduunka. dhismaha bulsho jidh garaad iyo nafsad ahaanba waa gidaarka dambe ee xijinaya jiritaanka jaamacaddan. jaamacaddu waxay bixisaa Faculty of Health and Medical Science, Faculty of Humanities and Social Science, Faculty of Economics and Management Science, Faculty of Education, Faculty of Sharia and Law, Faculty of Engineering and Computer Science. jaamacaddu waxay kula diyaartay adeegyo iyo aalado ka gedisan kuwii hore looga bartay jaamacadaha dalka. waxyaabaha ay ka duuleysana waxaa ka mid ah inay soo saarto arday la sifiye iyo saansaankii arday caalamiya lagu yaqaanay oo lagama yaabo inay buudiina hor keento qof magac jaamacadeed sita haddana dhaqan wax magarato leh. lagama yaabo inay ku wacad furto oo aad ku soo hungowdaan. ma noqon doonaan qaar dadka qulux u tuma waxaanay dhisayaan qof leh astaamihii aqoon-yahan iyo kii anshaxeedba. waxay ka shaqayn doonaan sidii ay idiin siin lahaayeen waxbarasho deegaanka iyo dadkaba waxtar u leh.